kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba naga daawanaysaan waxaa maanta u safray caasimadda dalka Austria ee magaalada Vienna oo qiyaastii 2 saac u jirta magaalada aan deganahay ee Linz caasimadda gobolka Oberösterreich si aan ula kulmo Khadiija Axmed Ducaale waxaana uga weydiiyo dhalinyaradii laga tarxiilay Austria oo ay dawladda saxiixday maadaama cabsi badan ay jirto iyadoo hadalhayn badan ay ka dhalatay dadkii dhalinyaradii la tarxiilay isla markaa la soo celiyay isla markaana liis dheer oo kale oo tarxiil ah ay dadku hadal hayaan oo laga yaabo in laga celiyo dhalinyaro fara badan dalkan Austria iyo Jarmalka Khadiija Axmed Ducaale wakiilka rasmiga ee Soomaaliya ku metelaya hay'adda quwadda atomikada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano IAEA International Atomic Energy Agency ahna danjiraha u fadhiya Soomaaliya dalka Switzerland ayaa sidoo kale soo gaartay dalkan Austria danjiro Khadiija oo qayb ka ahayd maanta soo dhaweyn diiran oo madaxweynaha dalkani Austria Alexander van der Bellen uu sameeyay safiirada cusub ee ka kala socda Ghana, Slovenia, Portugal, Canada, Sweden, Liechtenstein sida bartiisa Facebook uu soo dhigay kadib markii ay soo gudbiyeen warqadahooda aqoonsiga waxay noqdeen safiirada rasmiga ee dalkooda u jooga Austria safiirada oo aan aniga iyo wafdi ka tirsan guddiga jaaliyada Vienna ugu tagnay hotelka ay ka deganeed caasimadda Vienna ayaa ii suurtagelin inay iga jawaabto oo aan wareysi kala yeesho wax badan oo bulshada ka guuxaysay iyada oo sababaysay marka arrimahaas oo kale ay ka hadlayso safaaradda waa inay ogolaasho arrimaha dibadda ka haysata dhanka kalena xogayaha safaaradda iyo safiirada ayaa si guud noogu sheegay inaysan safaaradda wax ka ogeyn wiilkii horaantii loo tarxiilay Muqdisho kaasoo dib loogu soo celiyay Austria isla markaana tibaaxda inaysan ka safaarad ahaan saxiixin warqad celis ah iyadoo aan ogolaasho laga helin shakhsiga la celinayo waxaana baaqday maanta safar uu ku imaan lahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kalena safiirada oo nooga warbixisay kulanka ay la yeelatay madaxweynaha Austria ayaa sheegtay in jaaliyada aad u amaantay dawladda Austria safiirada Khadiija ayaana ballan qaaday in ay si dhow ula shaqeynayso bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Austria sheegtana xili walba in safaaradda la soo wici karo